السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا وين السلام يا ميل كستود الدنيا كجوكتان وحن مالي دويتا كهذا السيدة لو دسا آمينات نحلقلا آمينادو وواحد ضدك اسكو هيا ما أنتم وحن كهالينا قفك آميندو أي كاتشبتي أما آميندي أي كهاللودي أما أي كو أدك تايدتك إنو آمنو صدح ذا وحيالود أو آميندي سي أما إنو ضدك آمنو وكسو كبسان لها محايلي ونورمال وانا عادي إنا قف بيزنس كو آمنتي ama relationship in ka dhaxeeya xiriir in ka dhaxeeyay ama family adahaydo wax ku aaminatay inuu shaqeyn waayo inay wixii saad moodeysay ay u socon waayeen oo ay kugu dhacdo disappointment waxa la yiraahdo ama qanac xumo oo aadan wixii ku qancin midka ugu horeeya waxaad u baahan tahay in aad cafiso qofkii kugu sameeyay qaladkaas waa midka koobaad waa kan labaad waa in aad qofkii markaad cafiso hadana aad u sharaxdo qaladkii uu ka galay number 3 waa inaad ogsoonataa qof kasta wuxuu leeyahay wanaag iyo xumaan buu leeyahay isan ku muuqanin qofka xumaantiisa kale hadii marka koobaad aan sharaxo markaad qofka cafinayso waxaad xabsi ka saaraysaa naftaada kale waxaad xabsi ka saaraysaa naftaada maxaa yeelay in aad xasuusnaato yaraantaadii ama relationshipkii ama xiriirkii kuugu horeeyay qofkii qaladka ka galay ama ganacsigii kuugu horeeyay qofkii qaladka ka galay waxay ku gelinaysaa xabsi bay ku gelinaysaa waxaad u baahan tahay marka si aad xabsiga uga baxdo oo laga yaabo qofkii inuu san xasuusanin in aad cafiso oo arintaas aad samayso waxaad arkaysaa qof relationship ama maaragtay xiriir ama xaas ay lahaayeen ama gabar ay wada yeesheen ama wiil ay gabar la yeelatay laga yaabo wali inuu xasuusto dhibaatadii uu qofka u geystay oo uu qofkaas laga yaabo inuu maaragtay picture ku tuso ragga Soomaaliyeed oo dhan inay xu yihiin dumarka Soomaaliyeed oo dhan inay xu yihiin laakiin aadan ogeyn qofkan qalbigiisu wuxuu ku jiraa wali xabsi qof xumaan uu ku sameeyay awgeed buu wuxuu uga dhigayaa dadka dhan inay wada xumaadaan waxaan waliba halkaas rabaa inaan xasuusiyo xasuusintaas forgiveness-ka haddii aad rabto gabadhaada ama gabadha aad jeceshahay inaysan arrimahaas oo kale ku dhicin waxaa laga rabaa in relationship-ka ama waxyaabaha la midka ilmaheena iyo dadkeena aan training ku siino oo la baro qofku inuu waxa qaladka ku dhacay uu forgiveness ka sameeyo number 2 in aadan dhihin waa iska cafiyay awsan qofkii mar labaad wixii kugu celinay aad u sheegto aad dhahdo qaladka igu sameysay sidaas oo aha oo uu qofkii fahmo suusan qaladkii dib dambe kugu soo noqon waan cafiyay macnaheeda maaha inuu qaladkii kugu soo noqdo oo celcelis kugu soo noqdo mana loo baahan number 3 waa in aad xasuusataa qofku wanaagna waa leeyahay xumaanna waa leeyahay shaydaanku wuxuu xasuusiyaa qofka dhanka xumaanta kaliya ogow adigu mar walba ma saxnin ma fiicnin dhanaad ku qaldantaa jira haddii qofka kale qalad kaa soo gaaray waa inaad xasuusataa wanaagiisii oo aadan xasuusanin qaladkiisa kaliya dadka qaar baa waxaa la yidhaahdaa waxay aruuriyaan kaliya xumaanta oo markay hal xumaan ku dhacdo xumaamaha dhan la soo baxa marka walaalayaal message-kii hore haddaad fiirsatay oo ahaa muhiimaddu ay leedahay aaminaadu iyo ma aragtay sida loo dhiso kan waa qofka ay ka halowday siduu u dhisi lahaa waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad janaalkeena ku xirato si aad noola socoto waxyaabaha muhiimka ah oo aan ku baraarujinayno bulshadeena si dhammaanteen aan u noqono isheena san saxarka uga qaban lahayn aad baan idin salaamaya